السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودياشا قيمها لي وبرنامج كيني وعي قلينتا وقيب كميدا برنامج كيني تحناها وعي قلينتا اي نوغهد لجرني وحيالها مصلحة دينا الدنيا يتين آخرة بيكو جرتو وحان ربا داوديال إناد عاوة أما مان تحضب مدى إذين تهي آدي لقيب ستان كور كستود جوكتان حل كستود جوكتان صدح شيكو oo ka mida buugan qoray oo weli la daabicin oo dhawaa soo saari doono oo la yiraahdo konton sheeko iyo konton xigmadood. waa buugan ku ururiyay ilaa konton sheeko oo ah sheekooyin tarbiyadeed carruurta Soomaaliyeed aan ugu talagalay in loo akhriyo iyagu akhristaan waalidku u akhriyo. sheekooyinku waxay soo koobayaan qaybaha kala duwan ee tarbiyadda, haday noqoto runta, haday noqoto amaanada, haday noqoto geesinimada, haday noqoto ilaalinta ballanta iyo qaybaha kale ee nolosha oo dhan. sheekooyinkaan idiin soo xulay waxaan ugu horeysiinayaa sheeko la yiraahdo maxaan kaa galabsaday ood ii dilaysaa. sheekada tan waa sheeko aan anigu alifay, ma aha qof inuu iga sheekeeyey ama sheeko waaqic u dhacday, laakiin waxay dhici kartaa ayna u badan tahay in sheekadani ay dad badan noloshooda sawir ka bixiso, macnaheedu ay tahay mid dadkan oo kale ku dhacday. sheekooyinka inta badan aan buuga ku ururshay waxay u badan yihiin qaar aan anigu alifay oo ah qaar aan ugu talagalay inay tarbiyadda caawiso, laakiin sheeko khayaali ah runtiina dhici karta aan ku saleeyay inay waaqiciina dhici karto. sheekadan markaan ugu hormarayo ee la yiraahdo maxaan kaa galabsaday ood ii dilaysaa, maxaan iyada usoo qaatay. waqtigan aynu ku jirno waa waqti masaa'ib, waa waqti fitan, waa waqti qofku aanu garanaynin waxa uu qofka walaalkiisa u dilayo, kala dilayna uusan garanaynin sababta loo dilay. dilkii qofka muslimka ah ee Soomaaliyeed aad buu maanta u macno beela. marka qisada tan waxaan ugu soo qaatay inaad ila dareentaan maxaa la yiraahdaa dhibka iyo masiibada iyo dulmigu ay xumadiisa, cirib xumadiisa meesha uu ku dambaynayo. waxaadna ogaataa qof bini aadan ah dhibaatadaad u geysatid, dulmigaad u geysatid, dilkaad u geysatid, aakhiro intaan la gaarin ilaahay subxaana wa tacaala adduunka kuugu soo dedejinaya ciqaabteeda. waa arrinaad markhaati iiga tihiin, waa arrinaad og tihiin inay in badan ku dhacday. marka arrintan maxaynu aasaas uga dhigaynaa inaynu carruurteena u sheegno, ku tarbiyadeyno, inagu isu sheegno. innagaa hadda uga baahi badano dad waaweynahe dilka qofka muslimka ahi inuu aada iyo aad u khatar yahay. sheekadan waxaa la yidhaahdaa sidaan sheegnay maxaan kaa galabsaday ood ii dilaysa. sheekada tan waxay ku saabsan tahay nin la yidhahdo xasan. aan idiin bilaabo haddaba sheekadii. xasan waa nin daadhexaad ah, wuxuu mu-adin ka yahay masaajid ku yaala magaalo ku taalla Jarmalka. xasan waa nin Soomaali ah oo midabkiisu furan yahay, kana mid ah dadka la yiraahdo way cas yihiin ama dadka Soomaalida u taqaano midabka casaanka ah marka midabka Soomaalida la eegayo. xasan waa nin aad iyo aad u firfircoon oo magaalada uu degan yahay dadka muslimiinta ah iyo dadka Soomaalida ah ay jecel yihiin, aad iyo aad loo jecel yahay. waana nin qof kasta oo marti ah oo magaalada ku cusub jecel inuu soo dhaweeyo, gurigiisa geeyo. xasan haddaba ma sidaas weligii ah. maalin ayaa isaga oo makhaayadda masaajidka fadhiya waxaa su-aal weydiiyey wiil dhalinyaro ah oo dadka dhawaan waddanka soo galay ah oo ka yaabay ninka wanaagiisa, macaanaantiisa, diiqsinimadiisa, siduu dadka ugu shaqaynayo. su-aal buu weydiiyey marka. wuxuu yidhi, adeerow xasan, waddankii markaad joogtay maxaad ka shaqayn jirta? xasan su-aashaasi dareenkiisii kiciisay, indhihiisa ilmi kusoo istaagtay. wuxuuna bilaabay inuu wiilkii uga sheekeeyo taariikh nololeedkiisii si uu wiilkani cashar ugu qaato. xasan haynoo bilaabo sheekadii. wuxuu yidhi xasan, waxaan ahaa wiil agoona. aabbahay wuxuu ku dhintay dagaaladii qabaliga ahaa
ee dalkayna ka dhacay. waxa ay soo koriyey buu yidhi adeerkay oo aan dukaan yar oo tuulo ka mida Soomaaliya aan ugu iibin jiray. waxa aan dadka reer miyiga ah ka iibin jiray waxay u baahan yihiin. dukaankaygii ilaahay baa ii barakeeyey. waxaan ka helay lacag aad u badan. adeerkayna waxaan ka helo ima weydiin jirin, wuxuuna igu talagalay oo keliya inaan ku noolaado, reerkaygana ka biilo, aniga oo meeshaydii iska jooga, tuuladeydii jooga, dukaankaygii iibinaya oo barwaaqo ku jira, ayaa waxa ii yimi mid aan ilmo adeernahay, mid aanan imaashihiisa mahadin, mid aanan socodkiisa mahadin. wuxuuna igu yidhi war arrin muhiimaa jirtee soo qaado qorigaaga. dukaanka waxaa ii yaalay qori aan tuugada isaga ilaalin jiray. qorigaygii baan hore soo qaatay. waxaana u nimi buu leeyahay xasan nin safar oo meel fadhiya. wuxuu igu yidhi ninkani waa reerka aabbahaa dilay, waa inaad dishaa. waxaan ku idhi war bal horta ninkan aan u tago oon weydiiyo. xasan wuxuu leeyahay waxaan u tagay ninkii, waxaan ku idhi war ma adiga aabbahaa dilay? war ma adiga aabbahay dilay? wuxuu ninkii igu jawaabay aabbahaa waa kuma? anigu adeer weligay cidna maan dilin. hadalkii baan dhowr goor ku celceliyey, isaguna sidaas oo kale ayuu igu qancinayay. adeer aabbahaa anigu maba diline magaciisaan u sheegay. markaan magaciisa u sheegay ayuu yidhi ninkaad sheegaysa adeer mana garanayo, qof muslim ahna weligay ma dilin. aad baan u qancay. ninkii hadalkiisii waan ku qancay, waan kasoo tegay. laakiin waxaa iga daba yimi kii shaydaanka ahayn, ilmo adeerka ahayn. wuxuuna igu yidhi war ma dhiiggii aabbaha ayaad sidaa uga tegaysaa? dhowr goor buu igu celceliyey. dhinac kastuu iga soo maray. dareenkaygii baa kacay. aniguna waxaan ku tala gashanaa mar uun ciddii aabbahay dishay inaan ka aarguto. markuu dhinac walba iga soo maray oo si kasta iila hadlay ayaa dareenkaygii kacay, caqligaygii tegey. waxaan soo qaatay qorigii, waxaan u imi ninkii oo intuu salaada hor tukaday salligii uu ku tukaday ku fadhiya. waa arrin aad iyo aad u murugo badan arrinta uu xasan ka sheekaynayo. wuxuu yidhi ninkii ayaa rasaas ooda uga qaada, halkiina ayuu ku dhintay. ninkii isagoo leh adeer maxaan kaa galabsaday ood ii dilaysaa? adeer maxaan kaa galabsaday oo aad ii dilaysaa? adeer maxaan kaa galabsaday oo aad ii dilaysaa? arrin aad u murugo badan weeye. xasan sheekadiisi ma halkaasay ku dhamaatay? waa maya. xasan wuxuu leeyahay waxa aad ciriiri igu noqday noloshii aan dhulkii joogay. waxaanan go-aansaday inaan iska soo tahriibo. uu soo tahriibay xasan. dhulal badan buu soo maray. siduu sheekadiisi ku sheegayo dhulal badan buu soo maray. wuxuu leeyahay waxaan soo galay jarmalka. wuxuu leeyahay xasan jarmalka anigoo maalin tareen saaran oo markaan muddo saarnaa dadkii tareenku ay sii yaraanayaan oo qofba meel uga degayo, ayaa waxaa si lama filaana tareenkii usoo fuulay niman dhalinyaro ah oo aada xoog badan, oo jirkoodu dhisan yahay, madaxu u xiiran yahay, kaba madmadoow wata, dhar wada madow labisan, wejigooda caro ay ka muuqato, naxariis darra ay ka muuqato, nacayb badan uu ka muuqdo. nimankii way ii yimaadeen, hadalla aada u caayo foolxun bay igu yidhaahdeen. luqadda jarmalka waan garanayo, iskuol baan galay, waan dareemayay waxay ku hadlayeen, waan garanayay waxay ku hadlayeen. hadallo aada iyo aada u foolxun oo caaya ayay igu lahaayeen. waxaan ku idhi war maxaad iga rabtaan oo aan idinka galabsaday? war maxaad iga rabtaan oo aan idinka galabsaday? nimankii way sii caayeen, waxayna igu yidhaahdeen inaan nin madow oo wasakha oo uraya oo dhulkiisa ka imi aan ahay. sidaas ayay igu wadeen. hadalladii baa naga taagtaagmay, way isugu kay tageen. iyadoo aan ku sigtay inay nafta iga qaadaan ayaa waxaa ilaahay iigu gargaaray inay niman madow oo nigerianihi dhinac dambe naga arkeen. way soo ordeen, nimankiiba iiga hiiliyeen. tareenkii ayaan ka degay, koomaan galay, cisbitaalkii ayaa la geeyey ayuu leeyahay xasan.
isbitaalka ayaa middo laygu dheeyey waxaana mar walba aan soo xasuusanayay ninkii aan gardarrada ku dilay ee walaalkay ahaa, muslin ahaa, soomaali ahaa, een gardarrada ku dilay hadalku igu lahaa ee ahaa war maxaan kaa galabsaday oo aad ii dilaysaa, war maxaan kaa galabsaday oo aad ii dilaysaa. isla hadalkii ayaan aniguna iri markay wiilashii jarmalka ahay cunsuriyiinta ay dilayeen oo aan lahaa war maxaan idinka galabsaday oo aad ii dilaysaan. isbitaalka markaan ka soo baxay ilaahay ayaan u toobad keen, waxaan dareemay khaladkaygii, waxaan ogaaday xanuunka uu leeyahay qof muslin ah in gardarro lagu dilo. waxaan raadiyey carruurtii aan aabahood dilay ee agoonta ahaa. ilaa waqtigan xaadirka ahna xasan wuxuu yidhi aniga ayaa carruurtii agoonta ahayd masruufa, oo waxaan sameeyey maadaamaan aabahood usoo celin karin oo uu dhintay bal inaan wuxuun bedel ah u sameeyo. sidaas ayaan biil joogto ah ugu qoray, noloshoodina ku kafaalo qaaday. sheekada tan cibrada iyo waayo aragnimada iyo caqliga ku jiraa muxuu yahay? qofka muslimka dhiiggiisa inaanu sahlanayn, qofka muslimka inaanu dhiiggiisa wax la sahdaala ahayn. haddii ilaahay subxaana wa tacaala aanu aakhiro inta aan la gaarin waxa lagugu soo dadejinayaa adduunka. waxaadna ogaataa haddaad qof muslima gardarro ku dishid kuwa kaa dhibaato badan oo dhaalimiina inuu ilaahay kugu sallidayo. sheekada koowaad ee aan idiin soo xulay ee la yidhaahdo maxaan kaa galabsaday ee aada ii dilaysaa, intaas ayaan kusoo koobay. sheekadan labaad ee aan idiin soo xulay daawadayaal waxaa la yidhaahdaa miskiinkii hore. waa sheeko cibro leh, u baahan inaynu dul istaagno, tarbiyad weyni ku jirto. qofka wax haysta loo baahan yahay inuu u naxariisto qofka kaleeto ee muslimka ee walaalkiisa. haddaanu waxba u awoodina inuu hadal wanaagsan, sida nabiga alayhi salatu wasalaam inoo sheegay inay kelimada wanaagsani sadaqo tahay, inuu hadal wanaagsan ugu jawaabo. qofka wax ku weydiista inaad caydid oo aad ceebaysid oo aflagaadaysid arrin sax ma aha. haddaad wax u awoodo wax sii, haddii kalena hadal wanaagsan ku dheh. sheekadani waa sheeko cibro leh, waxaana la yidhaahdaa sidaan cinwaankiisa idiin sheegay miskiinkii hore. waxaa jiri jirtay wakti hore qof dumara oo aada u qurux badneyd una wanaagsaneyd, cabsida ilaahayna ay aada ugu badneyd, ilaahayna subxaana wa tacaala si dhawo u aaminsanayd. waxa kale oo ay ahayd gabadhani qof deeqsiyada oo dadka masaakiinta ah u naxariisata. gabadhan waxaa guursaday nin maalqabeena oo dukaan weyn oo dharka lagu iibiyo leh. wuxuu ahaa ninkaasi nin aada u dabeecad xun, isla markaana bakhayla, dadka masaakiinta ana u daran, oo ay u dheer tahay isaga oo inaanu wax siin ugu dara qof kasta oo wax weydiista hadallo aada u falxun oo aflagaado ah oo meel ka dhaca. wuxuu maalmaha ka mid ah soo iibiyey digaag si ay casho uga dhigtaan isaga iyo xaaskiisu. wuxuu ku yidhi inoo diyaari digaagan, dukaankan ka soo noqonayaaye digaagan inoo diyaari oo casho fiican inooga dhig. xaaskii raalliyadda ahayd waxay diyaarisay digaaggii. markii uu shaqadii dukaanka ka yimi oo ay fariisteen inay cuntada cunaan ayaa waxaa albaabkii soo garaacay nin miskiin ah. bal sheekada u fiirso, albaabkii waxaa soo garaacay nin miskiin ah. waxaa ka furtay naagtii raalliyadda ahayd ee ficneed. markaas ayuu la hadlay oo wuxuu ku yidhi waxaan ahay nin miskiina oo gaajaysan, waxaan rabaa inaad caawisaan oo waxaan cuno isiisaan. markaas ayay ninkeedii u tagtay oo ay ku tiri waxaa albaabka waxaa taagan nin miskiina oo u baahan inaynu caawino. markaas ayuu ninkii soo kacay oo ninkii miskiinkaa caayay oo hadallo xun kula hadlay, isaga oo taaganna uu albaabkiisi carale qab ugu siiyey oo ka xirtay. wuu iska tegay ninkii miskiinka ahaa isagoo leh aniga iyo adiga ilaahay waa u simannahay, aniga iyo adigu deeqda ilaahay waa u simannahay, aniga iyo adigu deeqda ilaahay waa u simannahay. maxaa haddaba dhacay?
muddo yar kadib ayaa dhismihii ninkii dukaanka ku yaalay uu gubtay. waxaa gubtay dukaankiisii iyo wixii dhar ahaa ee yaalay oo dhan. wuu ku khasaaray ninkii dukaankii. wuxuu kusoo noqday gurigiisii isagoo aad iyo aad u murugaysan, hantidiisii ay dhaaftay. wuxuu u sheegay xaaskiisii raaliyadda ahayd dhibaatada qabsatay. markaas ayay tiri, iska samir ninkaygiiow, iska samir ninkaygiiow, ilaahay wuxuu ina siinayaa wax ka fiican haddaynu ku sabarno. ilaahay wuxuu ina siinayaa wax ka fiican haddaynu dhibaatano. ogowna waa layna imtixaanayaa, ogowna waa layna imtixaanayaa. khayr ayaan inoo rajaynayaa. markaas ayuu wuxuu ku yidhi, gabar yahay dhegayso, inta khayrka aad sheegaysaa uu imanayo, tag gurigiinnii, waxaan ku siiyo anigu kuuma haye oo anigay dhaaf. markaas ayuu furay xaaskiisii oo ay sidaa ku tagtay. waxay tagtay iyadoo murugaysan, laakiin rajaynaysa naxariista ilaahay iyo inuu ilaahay ugu bedelo ninka khayr badan oo ka wanaagsan. ilaahay subxaana wa tacaala ma dayaco addoommadiisa wanaagsan. muddo kadib waxaa qoftii dumarka ahayd guursaday nin maalqabeena oo aada u fiican, oo deeqsi ah, ilaahay aada ugu xiran, masaakiinta u naxariista. gabadhiina waxay heshay noloshii ay raadinaysay ayay heshay. waxayna ku wada noolaayeen iyadiyo ninkeedii cusbaa nolol aada iyo aada u wacan. waxayna mar kasta ilaahay subxaana wa tacaala ugu xamdin jirtay nicmada uu siiyey. waana sidaa ta loo baahan yahay qofka muslimka ahi inuu sameeyo. maxaa dhacay haddaba? waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mida uu ninkii soo iibiyey 2 xaboo digaaga oo uu yiri xaaskiisa casho inooga dhig caawa. waxa uu ku noqday shaqadiisii. marwadii fiicnayd waxay karaysay cuntadii iyo digaaggii oo ay si fiican u samaysay. markii fiidkii la gaaray ayaa ninkii shaqadii ka yimi. wuxuu la kulmay xaaskiisii oo cunto fiican u diyaarisay. markii ay cuntada u fariisteen ayaa waxaa albaabku soo garaacay nin miskiina. sidii ninkii hore waxaa albaabka soo garaacay nin miskiina. markaas ayay sidii markii hore ninkii ka furtay. waxay aragtay miskiin taagan. markaas ayay usoo noqotay ninkeedii oo ay u sheegtay inuu taagan yahay albaabka nin miskiin ah. maxaa dhacay markaas ayuu wuxuu yiri ninkii, u geey 2 digaaga mid ka mid ah. innaga 1 xabo ayaa inagu filan, isaga mid u geey. waxay qaaday xaaskiisii digaaggii iyo cuntadii kaleba. waxayna u geysay ninkii miskiinka ahaa. markii ay hor dhigtay buu wuxuu yidhi, waa mahadsan tahay, ilaahay khayr ha ku siiyo. markaas ayay codkiisii garatay. maxaad u maleynaysaan inuu yahay? mise waa ninkeedii hore? siduu ilaahay arrimaha u kala bedelay ma arkaysaan? mise waa ninkeedii hore. waxay kusoo noqotay ninkeedii cusbaa iyadoo murugaysan oo ooyeysa. markaas ayuu yiri, maxaa kugu dhacay oo aada la ooyeysaa? waxay u sheegtay in ninka miskiinka ah ee soo dawarsaday ama soo tuugsaday uu yahay ninkeedii hore. maxaa dhacay markaas? wuxuu markaa ninkii si degan u yiri, haddii uu ninka ina soo dawarsaday uu yahay ninkaagii hore, aniguna waxaan ahay miskiinkii hore ee uu berigii hore albaabka ka xiran jiray ninkaagii. ilaahay ayaa arrimaha sidaa isu dhaafiya ama isugu bedela. maxaa cibro iyo xikmad ku jirta sheekada? waxaa loo baahan yahay haddii ilaahay wax ku siiyo dadka ha ku kibrin. adiga iyo kan aan haysanay ku weydiisanaya ilaahay way u sugan tihiin. raganimo gooniya ma dheerid, kama aabba fiicnid, kama hooyo fiicnid. imtixaan weeye. adigana ilaahay subxaana wa tacaala wuu kugu eegi, isagana waa lagu eegi. haddaad wax u awoodid wax sii ilaahay baa ku siiyey. haddaadan u awoodin kelmad wanaagsan ku dheh. sheekada labaadna halkaas ayaan kusoo xiraynaa. sheekadii ahayd miskiinkii hore. waxaan gelaynaa sheeko 3.
sheekadeena saddexaad daawadayaal waxaa la yidhaahdaa isagaan isku qabiilna. waa sheeko aad iyo aad u cajiiba, aad iyo aad xikmadani ugu jirto, bal ila dhegaysta. axmed waa wiil 12 jira oo Soomaali ah, kuna dhashay kuna barbaaray dalka Mareykanka. waxay aabihii iyo hooyadii axmed kula dadaaleen waxbarashada. axmed wuxuu aad u jeclaa barashada af Soomaaliga oo uu arkayay dhaxalkii awoowayaashiis. waxayna arrintaa wadaageen saaxiibna ku ahaayeen cali oo isaga da'diisa ah, isla markaana ay isku dhigtaan. labada reer oo ay ka kala dhasheen labada wiil waxay aad ugu faraxsanaayeen inuu mid waliba wiilkeedu helay wiil la saaxiiba oo wanaagsan oo ay waxbarashada iyo diintaba iska kaalmaystaan. kubadda oo labadooduba aad u jeclaayeenna ay wada ciyaaraan. maxaa haddaba dhacay? waxaa jirtay dhibaato u muuqatay oday faarax oo axmed adeerkii ahaa, laakiin aan dadka kale u muuqan. adeer faarax wuxuu ahaa nin tuulo joog ah, Soomaaliya kusoo koray, ku weynaaday. wuxuu ku yimi dalka Mareykanka dhowaan nidaamkan dad isu keenida ah. wuxuu adeer faarax jeclaystay inuu ogaado wiilkan uu adeerka u yahay wiilka caliya ee saaxiibkiisa qabiilkiisa. wuxuu ku yiri adeer, wiilkan saaxiibkaa ah ee cali qabiilkiisu yaa weeye? wuxuu ugu jawaabay axmed, adeer anigu ma aqaano, muhiimna iima aha. maalin kadib ayuu u yimi adeer faarax axmed oo uu ku yiri adeer, waan soo ogaaday wiilka saaxiibkaya ee cali ah qabiilkiisa, mana aha reer fiican ee waa inaad iska ilaalisaa, dhibaato badan bay noo geystay. aad ayuu igu celceliyey, goor kastuu ku yidhaahdaa, waqti kastuu ku yidhaahdaa. arrintii waxay saameyn ku yeelatay axmed yare naftiisii. inkastuusan nicin saaxiibkiis cali, haddana wuxuu yareeyey la socodkiisii. waxaa yaraaday kulankoodii, waxaa yaraaday meelaha isku arki jireen, waxaa yaraaday af Soomaaliga wada baran jireen, waxaa yaraaday diintii ay wada baran jireen, waxaa yaraaday ciyaarihii wada ciyaari jireen. maxaa haddaba dhacay? waxay arrini sida ahaataba maalin maalmaha ka mida ayaa wiilkii axmed isagoo meel maraya waxaa ku soo baxay 3 wiil oo Mareykanka madow ah. meel bay taagnaayeen, axmed ayay maageen oo isku dayeen inay garaacaan oo dilaan. isagoo axmed wiilashii la dagaalamayo iska celinayo, laakiin ay ka awood bateen oo uu jeclaaday inuu cid Soomaaliya usoo hiilisa u helo, ayaa waxaa ku soo baxay wiilkii saaxiibkiisa ahaa cali. cali wuu qayliyey, wuuna la dagaal galay. wiilal kale oo Soomaali ahna way yimaadeen. meeshii ayaa axmed laga celiyey wiilashii dili lahaa. degdeg ayaa axmed loogu soo gurmaday, waana loo soo hiiliyey iyadoo arrini meel xun ay ka marayso. waxaa yimi booliskii magaalada oo kala kaxeeyey wiilashii oo mid walba ka mida ku amray inuu gurigooda aado. cali wuxuu saaxiibkiis axmed ku yiri, maalmahan xaggeed ka baxday saaxiib? waa lagu waayey. xaggeed ka baxday? waataynu wada ciyaari jirnay, ayaamahan waan ku waayee, xaggee ka baxday? miyaad xanuunsatay? axmed oo isku xishooday, rabinna inuu saaxiibkiis u sheego, wuxuu adeer faarax uga sheekeeyey. wuxuu yiri, waan mashquulsanaa saaxiib, laakiin hadda kadib sidii hore ee aynu saaxiibada u ahayn, ee aynu isku arki jirnay, ee aynu u wada ciyaari jirnay, ayaynu u wada ciyaaraynaa. maxaa haddaba dhacay? axmed wuxuu yimi gurigoodii. markii uu soo galay ayuu qayliyey, wuxuuna ku yiri, cali baanu isku qabiilnahay, kor ugu qayliyey. reerkii way yaabeen, waxaana ay weydiiyeen sida wax u dhaceen. markii u sheegay bay yidhaahdeen, waa runtaa isagaad isku qabiil tihiin, isagaa cid kasta kaaga sokeeya, isagaa saaxiibkaaya, isagaa walaalkaaya. adeer faarax wuxuu dareemay
khaladkiisii wuxuuna ku yidhi markii uu guriga yimi oo arrintii dhacday loo sheegay isagoo aada u murugaysan anigaa wiilka waxaas xun u sheegay anigaa wiilka balaayadaas ku akhriyay anigaa balaayadaas iyo qurunkaa iyo qabiilka wiilka uga sheekeeyey adeer iga raalli ahaw saaxiibkaabaana cid kasta kaa xiga cid kastana kaaga fiican isagaana isku qabiil tihi waa sheeko tarbiyadeed aada u fiican oo nagu talagalay inaynu carruurteenna ku tarbiyadayno miisaanka ay wax ku eegayaan cidda u dhow iyo cidda ka fog waxaan rajaynayaa inay in badani ka faa'iidaysato sheekadii saddexaadna halkaas ayay ku dhammaatay barnaamijkeenii wacyigelinta ee toddobaadkana intaas ayaan kusoo xirayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu